السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سود وضع وضيالا ندلو ذاق ورد دقدقة cutubyo xoogan oo ka tirsan ciidanka maamulka waqooyi bari ayaa goor waxay buux dhaafiyeen gudaha iyo banaanka aaga tuulooyinka hoos yimaada magaalada Cereegaaba ee xarunta gobolka Sanaag saacadda ka dambaysa waxaa la filan karaa dagaal weyn oo ka dhaca gobolka Sanaag sida ay tilmaamayaan xogaha iyo wararkan helayno macluumaadka wararku waxay tilmaamayaan in ciidamo culus oo hogaaminayo sargaal la yiraahdo tuujo oo ah mid ka soo jeeda beesha warsangeli in ciidankiisu ay u soo ruqaansadeen aaga Ceergaabo waxaana saacad walba la filan karaa inay xabadu ka bilaabato banaanka magaalada Ceergaabo ee xarunta gobolka Sanaag muuqaalo goordhow iga soo gaaray banaanka magaalada Ceergaabo ayaa waxay tilmaamayaan in Ceergaabo xilligan ay la circiirayso ciidamo tiro beel ah oo meelo kala duwan ka yimid kuwaas oo la aaminsan yahay inay yihiin kuwa ugu badan ee xilligan Ceergaabo buux dhaafiyay xogaha wararka la helaya ayaa waxay tilmaamayaan daawadayaal in dhowrkii saac la soo dhaafay culeysyadu ay ahaayeen kuwa jiray isla markaana culeysyadu ay maalmahanba ahaayeen kuwa xargaha goostay saacadda ka dambeysana waxaa la arki karaa in Ceergaabo ay la circiirayso ciidamo fara badan oo ka kala imaanaya meelo fara badan oo kamid ah gobolka Sanaag sida ay tilmaamayaan macluumaadka iyo wararka hadda aan helayno haddii aad doonaysid inaad ogaatid Ceergaabo ayaa isku haya Ceergaabo waxa isku haya waa Somaliland Puntland iyo maamulka waqooyi bari ciddi meesha xooga ku leh oo ciidamo ku leh oo dhaqaale ku leh ayaana la arki doonaa sida ay markan uga tafaxitaan in Ceergaabo gacan bir ah lagu qabto garaadada maamulka waqooyi bari iyaga warkoodu waa cad yahay dhowr jeer waxay ku celceliyeen in Ceergaabo ay tahay magaalo ka tirsan maamulka waqooyi bari ciidamada xoogan ee dabcan oo xilligan sida gaarka u hogaamiyo ninka la yiraahdo madaxweyne ku-xigeenka maamulka ee waqooyi bari Abwaan Cabdirashiid Jibriil isna tiro dhowr jeer wuxuu sheegay in Ceergaabo ay tahay magaalo ka tirsan maamulka waqooyi bari taas la isku khilaafsana laakiin hadda waxaa jira in Somaliland ay leedahay Ceergaabo waxay ka tirsan tahay maamulka iyaga dhinaca Puntland ay leedahay maamulka iyaga ka tirsan yahay waa arrimaha ugu badan oo dabcan xilligan khilaafku uu ka jiro iyadoo oo laga cabsi qabo in markaa ka dambaysa ay dhici karaan qashqashaadooyin la xiriira in Ceergaabo xaaladeedu ay noqoto mid allow sahal ah 48 saac la soo dhaafay sidoo kale waxaa jiray kala aragti duwanaansho xoog leh oo banaanka timid oo la xiriirta sida Ceergaabo u noqon karto magaalo nabdoon maadaama dhinacyadu ay ku hareereysan yihiin saacad walbana dagaal laga cabsi qabo taliya tuujo oo ah nin ka soo jeeda beesha warsangeli oo ah sargaal ciidan ayaa la soo warinaya ama laga cabsi qaba inuu Ceergaabo gudaha u galo waxaa sidaas la mid jira aragtiyo kala duwan oo banaanka imaanaya oo la xiriira in Ceergaabo xilligan dagaal uu ka dhici karo cidda ku gacan sareyn karta iyo xaajooyinka la xiriira ayaa wararku sheegayaan dhinaca kale gobolka Sol wararka ka imaanaya aaga toga aaga salinta ayaa waxay tilmaamayaan in ciidamo culus oo ka tirsan kuwa maamulka waqooyi bari ay goordhow ka baxeen fariisimihii ay ku lahaayeen aaga salinta iyo deegaanada hoos yimaada ciidamadaas waxaa la soo warinayaa inay tagi doonaan fariisimo dhowr ah oo ku yaala meelo kamid ah gobolka Sanaag si ay u xoojiyaan ciidanka maamulka waqooyi bari ee halkaas ku sugan dabcan dhaqdhaqaaq xoog leh iyo daandaansi wax u eg ayaa xilligan waxa uu ka socdaa gobolka Sanaag saacadda ka dambeysana dagaal ayaa laga cabsi qabaa haddii aysan si degdeg ah wax isku bedelin mas'uuliyiinta maamulka waqooyi bari qaarkood waxay leeyihiin xaajadu way isbedeli doontaa haddii aan si degdeg ah xal loogu helin in xabadu ay ka bilaabato magaalada Ceergaabo iyo deegaanada hoos yimaada Cabdiqaadir Firdhiye isagu wuxuu leeyahay yaanba caleemasaarkayga xataa la sugina haddii aad culeys daraantaan ciidanka waqooyi bari waa inay xabada iyaguna bilaabaan oo aysan cidna ka habaysan taas oo tiro dhowr jeera ay is-horstaag ku sameeyeen mas'uuliyiinta maamulka waqooyi bari oo tilmaamay in xilligan aysan sinaba macquul u ahayn in maamulka waqooyi bari xabad ay ka bilaabato inta ay socoto xafladda caleemasaarka dabcan waana waxa kaliya oo garaadadu ay ka cararayaan in madaxweynaha Soomaaliya oo ku sugan Laascaano banaanka magaalada xabada ay ka dhacayaan waana fursad kale oo la dhigi kara Laascaano amni ma ahan waana inta kaliya oo dabcan ay xilligan rabaan Puntland iyo Somaliland feejignaan xoog leh ayay ku jiraan ciidamadu mar walbana waxay iska celinayaan ama ay doonayaan inay ka hortagaan duulaan dhinac walba ah oo iyaga ku soo wajahan waana waxa kaliya oo xilligan ay dabcan doonayaan inay iska difaacaan cid walba oo duulaan iyaga ku soo qaada sida ay tilmaamayaan wararka iyo macluumaadka aan helayno
haddii xabadii ay ka bilaabato bannaanka laascaano ceeb waxay ku tahay sida ay khubaradu aaminsan yihiin cabdiqaadir firdhiye iyo garaadada haddiise la difaaco magaalada oo xabadda laga ilaaliyana dad badan waxay aaminsan yihiin in la difaaci karo magaalada oo xabadda aysan bannaanka magaalada ka dhici karin ammaanka magaalada laascaano ayaa sidoo kale si weyn loo adkeeyey iyada oo bannaanka magaalada laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo xoogan wuxuu ku soo kordhaa daawadayaal wararkeena dambe ayaan idinkugu soo tebin doonaa haddii tahay markii kugu horreysa nagu soo biir subscribe janalkan waxaad heli doontaa wararkii macluumaadka mar walba halkan aan ku daawacno soo dhawow daawade